iyadoo wali wadankani jamhuuriyadda Jabuuti ay ka soconayso howlaha ololaha baarlamaanka ee wadankani ayaa waxa biga talada wadanka haya oo isagu la loolamaya laba xisbi oo kale ay ku qabteen qaybo badan oo kamid ah wadankani jamhuuriyadda Jabuuti maalmihii la soo dhaafay iyadoo oo maantana xisbiga talada wadanka haya ay ku qabteen magaalada Cali Sabiix oo iyadu 100 kiiloomitir u jirta caasimadda wadankani jamhuuriyadda Jabuuti isku soo baxa ka dhacay deegaanka Cali Sabiix oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay kumanaan dad ah oo taageersan xisbiga talada wadanka haya ee EMB kuwaas oo ku luuqeynayay EMB ha noolaato iyo erayo kale waxa goobtaasi kula hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo qaarkood dawladda jamhuuriyadda Jabuuti xil ka haya isla markaana ka soo jeeda gobolkaasi iyadoo sidoo kalena goobtaasi ay kula hadleen madaxdii hogaaminaysay ololaha baarlamaanka doorashadiisa oo uu hormuud u ahaa Ilyas Muuse Dawaale oo isagu ah wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha wadankani jamhuuriyadda Jabuuti aad baad u mahadsantihiin dhakhtarkii wuu balaadmay wuu dhammaani doonaa hadduu ilaahay yaraado mandaqadani dhakhtarka Cali Sabiix baa laga daweyn doonaa oo noqon doona dhakhtarkii reejoogan loogu talagalay maxaa noo raaca dhakhtarkaas tareenkii waan dhammaynay dhismihiisii wuu bilaami doonaa mar dhow reer Cali Sabiix way ka shaqayn doonaan way u shaqo tagi doonaan way maarayni doonaan way ilaalin doonaan nolol baa soo noqon baan leenahay raja soo noqon baan leenahay mustaqbal baa soo noqon baan leenahay insha Allah ta'ala inta iyo in ka badan maan soo wadnaa hadduu ilaahay raado waxa soo ku dhambeeyeen been baad sheegaysaan war ma ka aqbalnaa هذا البدن حيرما بوحية بسومالي وترادا أنك هذا البدن هو بوحي ولا لا يو هذا البدن وما بعنين وحبان حينا على مدن حينا على مدها مال تكتم بسياني سو بندقي دونا ميكائيل عبد الرشيد بري تلفزيون كقرن الصومالية جيبوتي